wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Xudur ee xarun goboleedka Bokool ee koonfurta Soomaaliya madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudur markii ay ka degeen waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliin ka tirsan maamulka gobolka degmada saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa inta uusan u sii dhaadhicin gudaha xarunta degmada waxa uu isla garoonka diyaaradaha kula hadlay boqolaal dadweyne ah oo halkaasi ku soo dhaweeyay isagoona sheegay in booqashadiisa ay ku saleysan tahay kormeerisa xaaladda nololeed ee gobolka Bokool iyo sidii bulshada ku dhaqan gobolka Bokool talo looga laha wasiirada Shariif Xasan Dhuwan uu soo dhisi doono xaaladda geeka laga jara xaalad sahlan ma ah runtii dadku dad adkaysaday dhibaato adkaysaday iyo wayna rajeeyeen inta dhibaatadu ku bahan dhaafan guduban horumaran guduban dib u dhis iyo horumar iyo adeegii dawladnimo iyo diiran way rajeeyeen in dawladdu maamul goboleedku nagada maamulkii صح أن أذيق فدي ومدن أذيق فدي دلالة فدي دبعتون دتوك بيف فدي نبدها نجا فدي نبد لا هي نجا نبد لانتيه وندوم مله نبد الناس النوج الله نبد لانتيه حتى ما لبعض يسود كورنتي مساعد من باكرت والمسؤول بكرت ولا جيك ودم كجر أغني مرك وين نافذي أنتي ونقلياس قبسنا دلال بدن صوبنا ومدي الله والبدلاس intaasi kadib isaga iyo wafdigiisa waxa loo dhaadhiciyay gudaha degmada Xudur halka uu kula hadlay xubno isugu jiray maamulka gobolka degmada odayaasha dhaqanka culimo u diinka ganacsato haween iyo bulshada kale ee magaalada Xudur kuwaasi oo si gaar ah Shariif Xasan uu qaabilay waxaana inta badan kulmadooda ay ku saaleysanaayeen warbixin laga siinayay xaaladda gobolka Bokool oo inta badan wadooyinkooda ama degmooyinka gobolka ay yihiin kuwa go'doonsan waxaana Shariif Xasan uu sheegay in dhibaatada haysata shacabka Bokool ay la qaybsanayaan وزير الله وزير كريان الله أقاسم الله عيدن له ويرجعنا معمول كاسنا معمول أوسين أذيق دونا دولة نمدك أذيق دونا دولة دونا كشقة دونا إنه سنقد يرجعنا دولة الصومالية نلا شقة دونا إنه سنقده دالكسر واتلون كبافدي ولا عرابك جرئيد لنسلوغنين ويفضانه أن أول عليه أن أقاموس هاي سنة أنتي وناي ولا يسكول شقينا سيدواتهم كوبافنا magaalada Xudur waa magaalo muddo ka badan hal sano ay go'doon ugu jirto al-shabaab dadka ku noolna waxa la degay xaalad abaareed iyo mid nolol xumo ma jirto gargaar dhinaca dhulka ah oo gobolka Bokool la gaarsiiyay marka laga reebo mar qoro wasaaradda gudaha ay wax gaarsiisay ilaa iyo xilligaas dadka noloshoodu aad ay u leedataa Shariif Xasan iyo wafdigiisa ayaa galinkii dambe maanta dib ugu soo noqday magaalada Baydhabo محدن حسني تي في عالمي يونيفرسال